واريتينا إنت أقول دمتنا إلهي إني نحرست أنت نصاحة داي سند بين نهار سند كات وديار جروبة تلو ديار جروبة وأنا إذا صامر دونا إن شاء الله تعالى ديجنا ذو حجال بان نقول دونا صحافتنا دي يدوم ما صنت السلام مركورة وحن ذلك يو جيت كدير صامرين يدي بطل لقيب سنين كان عصت هذا غير سيلع غير لو يعدو صدق هذا بقول كيلومتر يا مالما بدن وتشوجي هرجيسة أنت صدق بقول كيلومتر صامرين أهرن شرع الدراء on حق يواجب بتونا عن قوة بان نور تدل كده بطل قيب سنين وحي هيد إن أنا نقول تجنو وضدك النصوص دور توي لكن شغلة يقولها هي ما دركتي بسمه يقولها هي كتيرني مدنا وكسر دوين النايو ده إن ضدكوا ويران ده أي قولها وكيله ده أنتي مادان وقولي وكيله قول إن ضدكوا دقيستو إنه شعب كوك دقيستو يهاي يدا لفتي دوار ما دركتي ده ما دركتي ما ده ليه شعب كنا حق بقوله هنا مالني هبي مادان دقمة دونان يقبل كي دونان هكذا مادان ويصوب تشيك كان بالانس كلوسمي وطني مكاد ودان ويان شعب كان تاو شيء يجمل جوجان با وايو مركب واحد فلنت لقى عوضه ايش العيد من دعضه ايه دبات دعضه اما محكمه لا تغايو واحد كله ما درت قرصوركا اما قولها وكيلده اللي مادا وحي ارن معمول iyo ما درتay khaladaad ay jira mas'uul in lagu xisaabtamo mas'uul sharciga gacanta isku qaatay taasi shacabka waan ku dhiiri gelinayna maalin habeen yimaadaan goluna waa gulihiini waa idin dhageysan inta marka ka baxo walaalayaal arrintani arrin dhib yar ma waa arrin dalkii qayb kamid ah lagu xadgudbay xuduudihiisii iyo lagu doonaya aqoonsiga ayay qayb ka la jabiyay waayo sigaarku Soomaaliland sharcigu ka yahay berbero sharci kaga soo degaa waxay la mid tahay qofka bakhaarka suuq hoose Hargeysa ku yaala sigaar ka iibsaday ee idaacada geynaya ama Maxamuud Hayban Maxamed oo geynaya la mid tahay waayo waa dalkii qayb kamid ah sigaarka sifa sharci loo cashuuray sababta loo yiri xariirada iyo garbadadar iyo boon ma dhaafi karo waxaan weydiinaynaa mas'uuliyiinta taayidi ma dal cusub oo Soomaaliland ah baad samaysay balena marka koowaad ma dastuurkii Soomaaliland baa bedesheen oo dastuur kale oo xuduudaha soo koobay oo xuduud dhiga garbadadar iyo boon baad samaysan mas'uuliyiinta weydiinaynaa madaxweynaha weydiinaynaa waxaan weydiinaynaa war dadka reer Soomaaliland ma yahay dad isku xuquuqa oo wixii dastuurku u jideeyay isku si ugu tagrifalaya meeniyaga weydiinaynaa ka soo jawaabin hadda dawlad cusub dhistaan goorma dhisteen dadka u sheegan lana dadka u sheega dawladda cusub dhisteen iyo magaceega iyo xuduudaha ku dhisanta u sheegan lana anagu dawladda Djibouti ka hadlayno waa ka dawladda Djibouti faragelin kuma leh dadka baa u shaqeynaya dadka u shaqeynayana magaca Soomaaliland bisitaan waxa weeyaan dadka deegaanka deegaan marka hore la hadlayaan kaga baxay hadalkii ku soo koobaya waxa weeyaan waa aragteen madaxweynaha waad la kulanteen arrintan waa kala hadasheen oo idinkiisa ilaa ka kala hadlay waxba kama fulin ta koobiya saddex dollar baad ka hadasheen tana ka hadasheen laakiin waxba kama fulin dadna waxa ugu liita qofka waxba la iskaga tirin baa ugu liita in dad wax la iskaga tiriyaad noqotaan ayaan idinku boorinayaa oo marka koowaad codkiina wax la iskaga tiriyo oona la iska qaadano intuu qof iskaga soo talagalo aan la qaadanay sida maanta noo daba taagantiin bari toolo codkiina halkaan marino ina marinaysaan idinla bal qaadan idin leenahay ku taliyaan idin leenahay constituency iyo dadka soo doorateen baanu nahay ina marinaysaan ina bal qaadaan baanu idin ka codsanaynaa taas waa qodobka labaad maanta sifa sharciyeenu ku hadlaynaa fiido dalka saylac wax inta lama yeelin amuudeeda la raraa waa arrin weyn oo qaran oo national issue in baarlamaanka la keenano soo jeedinayna usta ugu dhaqso badan arrinta baarlamaanka loo keeno hadaan la keenna baarlamaanku isaga dalban doona bal awoodda lagu bixiyay iyo cidda bixisay waa la weydiinaa mas'uuliyadda madaxweynaha la weydiin doona xaq buu leeyahay golaan madaxweynaha su'aal ka weydiiyo arrimaha maamulkiisa iyo ma aragtay iyo siyaasadda qaranka hoos imanaya waana la weydiin doona kala dabada dhulka dhigo waxa ku gabagabeynaya tani waxa la yiri weysha gowrac dibigu ku quusta way waa hadinta dadka masaakiinta xeebta jooga ee kuleelka taagan ee bacadka taagan leeyd lahayn ee jiil lahayn ee biyo lahayn way ha ku dhintaa way